هدو سكين كاو يهي سكين صافية سكين كليرا وآن لحين فينان أكني دو حبيان دبعان يرى عسعس هيوتشي كوسان اسمه ملاحو ورطي سيدي فينانكا هدانو سكين كاو انتها لحين قف كان كلها ليو حلو شيء ساينا تاي قف عافمات قضا مرول بول عد نفتا دا دنيسينا قف كان كنوحن بو أركينا تاي قف آن أهين عجز عدو دونوا هذا أنبا فاميليا هذا أنبا هذا قف عدن كلا داي حاجة تنبين أنبا قف عدو دا شقينسان قف كان مركو سيدا أركو وجهي وحو أخري كريا عدة تاي هدو قف كان وجهي أكو أركو وح عد هيجيتشين كريسي أو تكعجستي أنبا ند أوغين سيا لو هيجيتشيو قف كان ريسبكت كوكوهي هوس بيود عساب إلى هذا لأن كنو لما يبي كريسي لما يبي كريسي محو وجهي وح يروكيا لو سيدا اسكمود يا قف كنو وبالآن كسيدا عادي وشقيان ما أنت تقدر تقف بنم بضنو ملاحظة وجهي سو صارنتو كيبي سوا meel baa ku yar xanuunaysa qofka alle haddana ahayn wuxuu disease caadiyo wixii qofkii ku dhacay makaranaysa oo caajis ugu wacan tahay oo qofkani aad og tahay inuu hagaajin karayay deen ciil baa kaa qaban qofkii runta fiican ay bilaadan bay wadanay soo haddii qof aragtid qof aan iskaar gareyn oo wajigiisu wada si wadi yahay adigan daawanaya imka adiga socdanahay qofka maxaa ka yeesay muskira hagaajiyo waxaan duu yar oraya muu marka qofkii lama yeeli karaysid inuu respectkii uu ku hayay hoos u dhacdo ixtiraamkii uu ku hayay hoos u dhacdo videogana waxaan ku sheegayaa laba hab oo aad ku hagaajin karaysid skinkaaga habka koowaad waa hab unnatural habka labaadna waa hab natural labada habba skinkaaga way hagaajinayaan okay skinkaaga waxay ka baabiinayaan waxyaabahan aad ka caminaysid sida finankii sida acnidii sida malaxdan saasaaran wejigaaga waxyaabaha dhibaatooyinka وجهك كاهيستو أوردن لابد بوي كاسارين هبك كوبادو هبك unnatural هبك عن طبيعي هين لا يعمل الأركتيت سكين روتين له أو كلينسر سوي بسنية مويسترايزر سوي بسنية سانسكرين سوي بسنية حيابها كردوين برودكتس يا وسامح يعني سكين كاغونكسن هذا مقرنسا هبك سمح ما لكن هل دباتو لي دباتاداس أو هرمونادادا أوردن إلهي هون هدا تاي نين يا هدا تاي كبربا لابد إلهي كون حريصته هدي التستوستيرون كوجيرو التستوستيرون كان هوس بودايا أو فائدين التستوستيرون كمان تكون شيء فائدين التستوستيرون كوحوين هرمون كي كادي نينكا وهرمون كي هدو كاس هوس ودعو معناه حوين قبل بس هنا وصلت عاد كاينا سوفت سينو قناة كذا قبل صغيرة تلع سنة سايو واحد صوان قنصة قبل أوكي يود قنصة ضد بدنه نوع عصا واد أركت نوعها يو هدد قبل تاينا إيستروجين كاجي أيه هوس ودعيا إيستروجين كنوع هرمونكي gabadha waxyaabihii gabadh ka dhigay faa'iidooyinka estrogen-kana ma tirin karayo xad kaasi ka baxsan estrogen-ku waxaan timaha aan ku hagaajinaya ee kugu adkeynaya meesha waxaan wajigaagii ka dhigaya gabadh yani waxaan ka ilaalinaya inaad noqotid nin yo codkaagiina soft ka dhigaya adigu dee faa'iido kasto gabadh u gaara waxa sababteeda ah estrogen mar walbood ka saartid noloshaada ood ka sii goysid noloshaada wuxuun baad ku sii socotaa inaad noqotid nin weliba taana waxaa raacsan sunscreenku uu ku sii gaboojinaya wuxuu kaasii orkii qofku markuu waqtigiisu sii dhammaanaya magaranaysaa uu sii weynaanaya marba marka kasii dambaysa sooma sii orcodhay wajigiisu noocaasu kaasii dhigaya haddii qof sunscreen isticmaalay iyo qof استعمال سانسكرين لابد النولود لأيوه قف كسانسكرين كاستعمالي وكهر جبو بنانيا قف كان كلا عن استعمال مركاين استعمال سانسكرين وكسي جبو جيسه تاس هدي tahay qof waxaasoo dhan shafka u dhiganayo le anigu waxaasoo dhan alaaliya dan aan ka leeyahay ma jiro waa caadi skin routinkeyga oo iska sii wadanaya moisturizerka iyo waxyaabahan kriimadan badan waan iska sii wadanayaa okay anigu waan kuu sheegayaa un haddii aad tahay qof kusii adkaysanaya magaranaysa waa caadi walilahi alxamdu iska wada noloshaada laakiin ka hor haddii jirto hab aan saddexdaaba aan lahayn oo aan estrogenkaagii amba testosteronkaagii hoos aan u yareynayn oo aan gabowgiina kuu soo dedejin haddii jirto ka hor oo weliba hormoonada kugu mahad celinayaan oo skinkaagina clear kusii noqonayo ka hor haddii jirto hab saasiya way jirtaa habkaasna waa habka naturalka markaa horta intaydan gudgelin habka naturalka aynu ogaano sababtay finankan iyo waxyaabahan oo dhan nooga soo baxayaan haddii aynu ogaano sababtay nooga soo baxayaan waxaynu hagaajin karnaa oo xalkii la iman karinaa markaas sababta keenaysa inaad waxan oo dhan finankan iyo waxan oo dhan kaaga soo baxaan badanka waxa weeyaan midhicrada oo aan nadiif ahayn jirkaagu wuxuu kuu
sheegaya oo calaamad kuu siinaya nadiifi mindhicradaada ayuu kuu sheegaya jirkaagu marka kariimadan iyo waxyaabahan calaamadii unbay baabinayaan laakiin xididkii ruudkii arrinta maad hagaajin marka taa macnaheedu waxa weeye maalinta sidaas kaga daysid dib bay kugu soo noqonayaan dhibaatadu waxa weeye mindhicradaadii ayaa uskaga mindhicradaada nadiifi sideed u nadiifin karaysaa waxaad u nadiifin karaysaa inaad cunto aad gelinaysid cuntada aad gelinaysid sida barandadii dee waxyaabaha caadiga aynu garanayna dabiiciga aynu garanayno meeshay kasoo baxeen dhulka inay kasoo baxeen amba hilib ha noqdo oo xayawaanka ilaahay abuurtay ka mid noqdo amba dhulka ha kasoo baxo wuxuu doonaba ha noqdo waxaad gelinaysid ayna warshad kuusoo samayn aad gelinaysid wax allaaliya waxa laga sameeyey waxaa cun sababta aan u diidanahay waxay warshada u sameeyeen maad garanaysaa waxaan business baa laydhaha soo maha waxay doonayaan inay kusii jeclaysiiyeen oo sii rabtid oo sii jeclaatid ood kusoo noqnoqotid wixii ood balwad ku lahaatid markaa waxyaaba waxay kugu soo darayaan taa u saamaxaysa iyaga inaad kusoo noqotid ilan taasa faa'iido ah sooma dadkani ma arkayaan dhibaatadan ay kugu samaynaysa adiga wax allaale wax ka galay ma jirto sababtoo ah iyagunbay faa'iidadooda eegayaan cidna naftaada ma danaynayso sun hadday doonaan kugu dhiraan haddaad kusoo noqonaysid oo lacag u keenaysid wax allaaliya wax ka gala caafimaadkaaga ma jiro markaa aday ku saaran tahay inaad iska hagaajisid waxyaabahan cuntooyinkan aanad gelina waxay ka samaysan yihiin xitaa ku daritaanka waxyaabahan lagu daro cuntooyinka waxyaabaha makaransa wanaga inay macaan yihiin macaankaasna waxay u saamaxaysaa inaad dib ugu noqotid shirkadii haddana aad dib uga soo qaadatid wixii makaransa shirkada aad dukaanka ahaate waana waxay kuugu macaanaynayaan laakiin haddaad eegtid dantaada makaransa oo daniinaysid dantaada sonkorta kow iyo wax walba oo aanad garanayn meeshay ka yimaadaan sonkorta waxa weeyaan wax laba compound laisku degeyey waa glucose iyo fructose oo laisku geeyey fructosena waa addictive waa balwad caadiya waa maadadan ku jirta fruitiska intay kasoo saareen laakiin fruitska sababtaynu cunno ay tahay healthy inaynu cunnaa oo caafimaad u leeyihiin fitaminadan iyo fiberkan ku jira ayaa ka badan faa'iidadii ku leeyihiin ayaa ka badan faa'iido darada marka iyagu waxay sameeyaan fructose-kii intay ka soo saaraan ayay kuu gelinayaan cuntooyinkii kale aan dhadhanka lahayn imika tusaalan ku siinaya bariiskan noogu soo sameeya baastadii iyo waxyaabahan aynaan gelinayn meel alaalay meel ka yimaadeen bariiska haddaad gelinaysid amba baastada haddaad gelinaysid meesha laga keenay iyo sidii loo beeray iyo waxaasoo dhan okay anugu meeshaa kama hadli karayo ay mid kastaaba ma xuma taa ha u qaadan inaan leeyahay wax kasta way xun yihiin oo bacaysan qaar waxaa jira wanaagsan laakiin waxaa ka badan waxa xun boqolkiiba 96 4% soo hadhay waxa qarinaya 96 laakiin way jiraan dad wanaagsan oo wixii caafimaadka u eegaya makaransayo waxay sameynayaan iska eegaya oo aan qofkii wax walba aan kusoo dhurin ay ha u qaadan inaan leeyahay wax kasta way xun yihiin hadda cunina waxyaa may eg kow horta qof weyn baa tahay wax allaadaya waxaad cunaysidna adaa garanaya anuu xun baa kuu sheegaya informationka haddaad haysid khalad iyo sax adaa garanaya taasi waxay ahayd tii koowaad labaad waxa weeyaan inaad dididid inaad maalintii isku daydid ugu yaraan inaad socotid 30 minute zone 2 cardio haddaad karaahsan tahay haddaad tahay qof karaha inaad carcartid iyo waxyaabaha dee waan ku fahmayayo dee mar walba ma jeclaysanaysid inaad carcartid makaransa wax la yidhaahdo zone 2 cardio jira zone 2 cardio waxa weeyaan waad lugeynaysaa laakiin intaada degdeg ka dhigaysaa heer aad qof kale kula sheekaysan karaysid qof kale haddaad la heli karaysid taa macnaheed waxa weeyaan waxaad ku jirtaa zone 2 cardio yacni cararka haddaad u fiirsatid haddaad xoog u cararaysid ma la heli karaysid qof kale neeftuurkaaga ku fikiraysaa magaranaysaa jirkaaga wuxuu isku dayaya intuu oxygen soo gelin karayo afkaaga inuu soo geliyo laakiin zone 2 cardio waxa weeyaan heer maaha aad aayar u soconaysid mana ahana wan cararaya waxa weeyaan heer aad kula heli karaysid qof kale aad yacni tallaabadaada dheeraynaysaa waa tallaabo dheereen 30 minute oo tallaabo dheerayna haddaad maalin kasta samaysid keliyata maaha skinkaaga hagaagaya moodkaaga dabeecadaada ayaa hagaagaysa haddaad ahayd qof caro badan ood ahayd dee nolosha diiqad kula yar lahayd makaranaysaa haddaad yaro socotid maalintii zone 2 cardio 30 minute haddaad samaysid maalin kasta moodkaagu intuu doono isbedelaya xoog buu isku bedelaya waxaad ahaanaysaa adigoo ahaa qof caro badan oo kaftan yaroo walbo lagu soo daayo ka xanaaqi jirid baad arkaysaa iyadoo waxyaabihii noloshu ay kugu soo diinaysaa aanay ku dhibin marka inaad ahaatid qof active sidii loogu talagalay
inuu bili-aadanku ahaado oo u noolaado aad u noolaatid aanad fadhiyin meel dee 24 hour amba xafiis ha noqoto amba cid meeshay doonto baa noqoto aanad fadhiyin 24 hour meel taasi faa'iido aad u weyn ayay adiga ku leedahay dhididku waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee skinkaaga hagaajinaya jidhkaagu wuxuu leeyahay hab difaac uu iskaga difaacayo jeermiskan wejigaaga saaran waxyaabahan keenaya finanka kuwii aan ahayn waxaan gadka midhicirka haddii aad midhicirkaaga hagaajisay oo gadkaaga aad hagaajisay oo weli ay finankii joogaan iyo waxyaabihii wejiga kaa haystay ay still joogaan macnaheedu waxa weeyaan bacteria dusha ka timaaday dibadda ka timaaday ayaa skinkaaga dhex gashay skinkaagii ayay ku samaysay waxyaabahan kala duwanee sida finankii iyo waxyaabaha taana jidhku difaac gaar uu leeyahay oo ah dhididkani iskama soo baxayuun waa qashisaar baad maqashay magaranaysaa oo caadiyo dee jidhkiiba iska soo saaraya magaranaysaa laakiin dhididkani asidkani wuxuu baabiinayaa oo uu dilayaa bacteriyada wejiga kaa haysata oo sabab ugu ahna waxyaabahan skinkaaga xumeynaya finankan waxaa soo kusay laga yaaba inay tahay bacteria dhibcan cascas ee skinkaaga dhex galay laga yaabaa inay tahay bacteria uu skinkaagu la dagaalami kari laayay wuxuu saamaxayaa dhididku laakiin wuxuu ku saamaxaya inaad waxaasoo dhan kaleergaraysid oo asidkan ku jira ayaa dilaya bacteriyada iyo dhibaatooyin walboo skinkaaga haysta shayga saddexaadna waa tu caadi oo soo wada yaqaano farahaagoo uskaga wejigaaga hataaba haddaad tahay qof markuu fikiraya saa yara idhaahdo iyo waxyaabaha adaas kugu wacan dhibaato kastoo wejigaaga kaa haysataa adaas kugu wacan marka intaa haddaad qabatid waxaan kuu hubaa 100% inuu skinkaagu intuu doono haddaad ka cabanaysid skin problem uu yahay finanka iyo waxyaabahan dhibaatada ku haysataa rag iyo dumarba qaar baa odhanaya ninbayaan maxaa iga galay dee wejigaygu siduu doona ahaado dee ninnimadayda ku xiran no caafimaadkaaga ayay sheegaysaa caafimaadkaaga iyo healthkaaga ayay sheegaysaa in aad skinkaaga hagaajisa haddaad caddaan ku raadinaysidna rag iyo dumarba haddaad caddaan ku raadinaysid dhibaatada ku haysataa maaha xagga wejiga waa xagga mentally maskaxiyan bay dhibaatada ku haysataa haddaanad ogolayn skin kalarku ilaahay ku siiyey ood leedahay hebel baa idhaahday madowga amba hebleeyaa tiraahday madowgu waa foolxumo dadku type bay kala leeyihin hal qof waxaaga oo dhan ma saari karaysid hadduu hebel yidhaahday sidaa macnaheedu maaha adduunka oo dhan saasay aaminsan yihin waxaa jira qof raba qof madow waxaa jira qof caddaan raba qof maarin raba kala duwanyin kalarada dadka kala rabaa ma garanaysaa haddaanad rabin kalarku ilaahay kugu abuuray oo ilaahay idhaahday kalarkii ugu fiicnaa aan ku siin karayay waa kaa qaado raggii dumarba cidda doontidaao haddii aanad rabin kalarkaaga maskaxiyan bay dhibaatada ku haystaa xaggan tan fix garee horta ha loo bata meel ay dadka badankooda way ka odhanayaan qof cad baa rabaa oo qof sidaa rabaa qof waa type ma odhan karaysid maxaad u rabaysaa ma odhan karaysid inay dadkao dhan waa qofkaasoo kale wuu isku bedelaya isaga dartii siday dadkao dhan ii rabaan no dad baa jira ilaahay qofku kuugu talagalay wuu ku siinayaa bro chill out dadkaan la hadlayno haddaad iscadaysid iscadayn please kalarkaaga aqbal maskaxiyan bay dhibaatadu ka haystaa hagaaji bro hadduu video kacaayo ii sheeg please